asxaabtayda qaaliga isku soo noqonay oo kuwana farihi markaan soo dhaqay gacmihii maasha Allah lagama sheekeyn karo hadaa taaban lahaydna adaab arki lahaa wanaagooda iyo wax ka soo baxayo asxaabtayda qaaliga waxaa idin leeyahay tijaabiye ka wardoona waxaad u dhib badan maaha maalinta kuugu horeysa isticmaalaysa waxaa laga yaabaa liigna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta qaaliga soo dhawaada waxaan idin wadaa gacmaha waxaan ku cadayn lahayn jacjaca iyo waxaan rabnaa inaan gacmaha ka tirno markii xoogaa shaqayso hooyada weel badan dhaqdhaqdo oo iska garanaysaa hawlaha haysaan gacmaha xoogaa dayf baa ka muuqanayso marka waxaa idin wadaa alaabtii aan gacmaha asbuuciiba mar u isticmaalaan rabaa inaan idinla wadaago oo ah alaabaan aad u jeclahay xagga waxaan ku haystaa lindhanaan jeexa ogowsaan hore u yiriba haddii gurigaaga uusan lindhanaan oolin waxaa ka maqan gurigaaga qayb ka mida quruxdaada ku dadaal gurigaaga inay taalla lindhanaan hadday noqoto qurxinta dhalaalinta ama in wax lagu kilan garayaba waa loo isticmaalaa ama wax ku karintaba marka lindhanaantu jeermiska ayay kaa dilaysaa waxa madmadow oo halkan iyo ku harharo oo jirka iyo uu leeyahayna waa kaa soo saaraysaa wayna cadaynaysaa gacmaha iyo jirka meeshii aa u isticmaashidba cadayn bay leedahay xaggan waxaan ku haystaa saabuun noocii doonta ha noqoto adigu noocay aa haysato aa isticmaashid markaas saabuuntii adiga aa jeceshahay inaa isticmaashid halkaana waxaan ku haystaa maa-ul wardi ubaxa biyaha laga sameeyey waxaan kaloo haystaa faasiliin isla socosho wanaagsan sida aan sameynayno iyo alaabtaas ay kusoo baxaysa isla arki doonaa saabuuntii waa saan waxaan isticmaalaa kan lagu xoqayo aniga waxaan u isticmaalaa kan wax ku xoqida besa cunada iyo saabuunaha iyo markaan isticmaalayaan kan birta yarta u isticmaalaa adigu laakiin waxaa rabtid u isticmaal midi ku xoq ama jarjar ama hadba adiga sidaa rabtid dheh qiyaasta samaysanaysidna laga yaqaan waxaan xoqanaynaa marka ugu horeyso saabuuntii aan haysanay ama waaweyn u xoq ama yaryar u xoq waa isku mid hadba adigu sidii aad jecesha yaryarka markaa u xoqdid bay xoogaa ku shida yaraanaysaa qasideeda maxaa yeelay saabuunta xoogaa inaa qastid baa u baahan tahay saana usoo xoqaya inta aan u baahanaan soo xoqaya insha allah asxaabay maasha allah waa tanaa waa soo xoqay qiyaasta aniga u baahnaa baa waxaan kasoo xoqday saabuuntii alaabtan hadaa baratid waxaa idin leeyahay gacmahaaga adeeg dambe kuma arkaysid marka waxaa u isticmaalaysaa waxaan ku darayaa hadda lindhanaanti jeex ahayd saa idin sheegay lindhanaantu faa'iidooyin aad u badan bay leedahay aan la soo koobi karinin haddii ay gurigaaga ka maqan tahayna waxaa ka maqan qayb ka mida quruxdaada waxaan ku daray asxaabay lindhanaantii jeexayda hadda ku dar ku miiray waxa alaabtan waa alaab aad u fudud markaad samaynaysidna dhib badan kaa qaadan mayso marka aad marsanaysidna kaagama baahno inaad tiraahid alaabtu iga xumaanaysaa iyo fridge baan gelinayaa alaabtaada meesha waxaa dhiganaysaa aweelka markaa dhaqdida agteeda ah markastoo aweelkaaga dhaqdida faraha kaa baxdid baad ayada ku dhaqaysaa gacmahaaga saastaad gacmahaaga u marisid oo ugu dhaqdid waa arki doontaa insha allah si kusoo baxay waan inoo tusi doonaa hadda waxaa isku qasayaa waa lindhanaantii iyo saabuuntii waxaan ku dari doonaa sidoo kale maa-ul wardiga qiyaasta inta aniga uga baahanaya isagana sidoo kale adigoo qaadadaas mugeeda camal oo kale aan isticmaalayaa maxaa yeelay saabuunta waxaan rabaa wax dhaqaajiyo inay ii dhaqaaqdo
marka hore marka alaabtaan intaana waxaa la rabaa inaan soo dhexgeliyo oo aan kasoo dhigo saabuun isku soo dhalaashay saxanka fidsan waxaa usoo isticmaalay inaa aragtaan sidaan isugu qasayo sida isku dhexgelayso uu aad isugu soo milo markay saabuuntii haddaan u daysid wax yar ah xoogaa radisidna way kaaga sahlanaanaysaa inaa qasideeda oo xoogaa markaa usii daysid markaa saxaabi alaabtan waxaan isticmaalaa wiigii kaste mar baan sameeyaa waxaa laga yaabaa inay kuu taala gurigaaga marka cabaar hadba adigu sidaa u isticmaashid markasta aad weelka dhaqdid ama guriga jikada iyo waxaas iyo howlaha soo hagaajisid ama shifti kasoo baxdid adiga waxaa rabtidba sameeyo gacmahaaga u isticmaal gacmahaaga markaa waxaa ka arkaysaa isbedel aad u badan kaama adkaanayaan saabuun kaliya ah maahan jeermis iyo wasaqna kuma haraayaan mar walbana way kuu cadaanayaan oo gacmo dhalaalaya yeelanaysaa oo guriga markaa joogtid gacmo subaxa oo aad u dhalaalayo haddii marka asxaabta aan heli karin alaabtaan umaleymaya inay taalo jirto meel aan laga heli karin laakiin haddaadan heli karin ama ma-ulwardigo kaliya waxaas aadan heli karin ayadana sidoo kale waxaa jirto sir kale aan idin siinaya waxaa isticmaashaan aad meesha weelka lagu dhaqado agtiisa dhigataan mar walba cusbo iyo saliid saytuun aad bay gacmaha waxay kaaga dhigaysaa subax iyo macaan qurux aad u badan gacmaha aadan gacanta ka daynin maanta oo dhan markaas cusbadaada caadiga meesha ku taalba marka hore gacanta maranaysaa saliidaadana waa ku dhibicsanaysaa markaa weelka dhaqdid aayar baad gacmaha ku masaajeynaysaa oo aad isku dhexgelinaysaa markaa kadib baad waxaan ku dhahayeeto gacmahaaga maasha allah ma malayn kartid si u ekaan doonaan asxaabay markaa waqti badan bay iga rabtaa xoogaa fiican inaan aad isku soo dhexgelgasho videoga igu dheeraanayo si fiican baa isku soo dhexgelgelinayaa saabuunta iyo maalwardiga iyo lindhaanta waa isla arkaynaa marka insha allah waa idinku soo noqonayaa isla markiina gacantaada ku baaba'aysaa waa kareen oo kale laakiin maasha allah gacantaada markaad taabatid baa faa'iidada runta ogaanaysaa faa'iidada runta oo ay leedahay waxaa ogaanaysaa markaa gacantaada taabatid waxaan isku dayayaa inaad si fiican u arki doontaan markaan ka dhaqan insha allah idin tusaya iyo gacantu say noqonayso ayar masaajka ayar baa gelinaysaa ma ahan wax aad u dhiiqa badan iyo maxaan ku rahdaa huruud iyo waqti badan iyo wax kaa qaadanayo maanta dhan u baahayno ku fadhiido ama allahay si dharba iga wasaqaynaysaa ama ilmama soo qaban karo ama waxaasoo dhan maahan ayar baad gacmahaaga saa u marsanaysaa waad iska biyo raacaynaysaa weelkaa dhaqanaysaa hawshaada baad sii wadanaysaa taas ayar qof farxashay baa tahay laakiin gacmahaagu sidaad ku ogeyd ma ahaan doonaan insha allah markaas kasoo dhaqana waa idin tusi doonaa siisay noqonayso soo tijaabiya asxaabteena qaaliga faa'iidada aad ku aragtaan fadlan la wadaaga subscribe channelkeena daryeelka jirka haddaad nagu cusub tahay sidoo kale pagekeena daryeelka jirka soo booqo like saar waad nagala socon kartaa isagana waa iska soo dhaqaya insha allah waa idin tusi doonaa markaas soo dhaqana suu ekaanayso asxaabteena qaaliga isku soo noqonay waa kuwana farihii markaan soo dhaqay gacmihii maasha allah lagama sheekeyn karo haddaad taaban lahaydna adaaba arki lahaa wanaagooda iyo wax kasoo baxayo asxaabteena qaaliga waxaa idin leeyahay tijaabiya ka wardoona waxaad u dhib badan maaha maalinta kuugu horeysa isticmaalaysa waxaa laga yaabaa liig inay gacmaha ku noqoto laakiin si aayaro degan aadan degdegayn u dhaq maxaan ku rahdaa tiishidkaaga maxaan ku rahdaa isku qalaji shukumaankaaga markaa dhaqda kadib kareen kale uma baahanaysid wax kale uma baahanaysid maasha allah gacmahaagana gacmaha i kala madmadow iyo meelo madmadow bay leeyihiin iyo waxaasoo dhan waad ka raysan doontaa iyo faraha madmadow ileh soo dhadhawaada aad ba u mahadsantihiin asxaabteena qaaliga idin jecelnahay idinkaa meesha idinku joognaa see you next time insha allah videoyo badan baa soo wadnaa isla socosho wanaagsan dhiirigelintiinna waa noo muhiim asxaabay waa kan alaabtii saana isugu soo qasay aad bay xoogaa kuu dhibaysaa markaa isku qasaysid laakiin waxaa fiican ana hadda waa dadejinaya laakiin waxaa fiican inaad inta isku xoqdid iska dhig dhowr 10 daqiiqo kabacdi 20 daqiiqo kabacdi wuxuu soo noqo aad bay markaas easy u ahaanaysaa inaad qastid oo aad soo kaa dhex gasho marka saan rajaynaya inaad ujeedaan baan rajaynaya waxa isugu kay dhex jiro waa liintii
maa ulwardigii iyo saabuuntii aan isku xoqay. marka hadda waxaan ku darayaa insha allah malab, waxaan ku darayaa faasiliinka. haddii aad baratid maasha allah. marka waxaad samaynaysaa alaabtan markaad isticmaalaysid cagga yarkaaba ku shubaynaa. hadda halka ka muuqdo aan isku qasano. waxaa ag dhigantahay meesha weelkaaga lagu dhaqo. sibiibix 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 wax yariisa u baahantaa markaad isticmaalaysid. intaa hadda yarta waxay ku haynaysaa waan ku leeyahay asbuucyo ka badan. waxaa u baahantaa wax yariis ah. gacantaada haddii kaa badato aad bay waxay kugu noqonaysaa dhagig. in yarbaa waxaan ku leeyahay gacantaada waxay ka dhigaysaa sibiibix iyo cadaan iyo qurux kuu siinaysaa gacmahaaga. marka adoo shifti ka soo baxayo gacmahaaga adeeg yihiin keliya haddaa u isticmaashid waxaa kugu soo dhacaysa jeefka ma isaga qaadataa maanta dhan ma iska barmarsataa. hadba meeshaa maraysid ba ma ku falaxlataa. saabuuntii lagu falaxlanay ma ka dhigataa. soo tijaabiya insha allah waa arki doontaan faa'iidada ay leedahay. mana aha wax aad u dhib badan. saabuun allaale saabuunta adigu ahaysatid oo gurigaaga kuu taalo isticmaashid oo saabuun qubays ah waa isticmaalaysaa. sidoo kale waa liin dhanaan. waa idiin soo sheegay liin dhanaanta iyo faa'iidada ay leedahay jirka u qabato. maa ulwardiguna asaguna sidoo kale jirka waana uu kelin garayaa waana caseeyaa. faa'iidooyin caafimaadna waa leeyahay. hadda saa ujeedaan saasaa isugu qasay. caagaanan ku shubanayaa. waan u isticmaali doonaa. xataa kaagama baahna inaad talaajad gashatid. kaagama baahna inay kaa xumaanayaan ma ahan. sidoodaasay ku ahaanayaan. dabool yar haddaa rabtid saaro oo maxaan ku radaa ama tishid yar afka ka saar ama caag daboolan ku hayso. insha allah waan rajeynaya markiina sifaan u aragtaan. hadda waa tanaa. intaa yarta aan sameeyey in badan bay ku haynaysaa. asbuuc ka badan bay ku haynaysaa. marka intaasoo kale waxaa u baahantay intaasoo kale sida kareenkii oo kale inaad saan u isticmaashid. markaad falxalanaysid oo aad jirkaaga saan u dhexgelisid gacantaadii waa arkaysaa hal mara waxaa ka dhigaysaa adoo dee saabuun ama isticmaalayo kale ama kareenkaaga ku wadato cadaynteeda ku wadato aan isu dhahayn saabuun qaqayro ku ahayn waaye. asxaabay waa tan alaabtii saana isugu soo qasay. aad bay xoogaa kuu dhibaysaa markaa isku qasaysid. laakiin waxaa fiican ana hadda waa dadejinaya laakiin waxaa fiican inaad inta isku xoqdid iska dhig 12 daqiiqo ka bacdi 20 daqiiqo ka bacdi ku soo noqo. aad bay markaas easy u ahaanaysaa inaad qastid oo aad soo ka dhex gasho. marka saan rajeynaya inaad ujeedaan baan rajeynayaa. waxa isugu kay dhex jiro waa liintii maa ulwardigii iyo saabuuntii aan isku xoqay. marka hadda waxaan ku darayaa insha allah malab, waxaan ku darayaa faasiliinka. haddii aad baratid maasha allah. marka waxaad samaynaysaa alaabtan markaad isticmaalaysid cagga yarkaaba ku shubaynaa. hadda halka ka muuqdo aan isku qasano. waxaa ag dhigantahay meesha weelkaaga lagu dhaqo. sibiibix 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 wax yariisa u baahantaa markaad isticmaalaysid. intaa hadda yarta waxay ku haynaysaa waan ku leeyahay asbuucyo ka badan. waxaa u baahantaa wax yariis ah. gacantaada haddii kaa badato aad bay waxay kugu noqonaysaa dhagig. in yarbaa waxaan ku leeyahay gacantaada waxay ka dhigaysaa sibiibix iyo cadaan iyo qurux kuu siinaysaa gacmahaaga. marka adoo shifti ka soo baxayo gacmahaaga adeeg yihiin keliya haddaa u isticmaashid waxaa kugu soo dhacaysa jeefka ma isaga qaadataa maanta dhan ma iska barmarsataa. hadba meeshaa maraysid ba ma ku falaxlataa. saabuuntii lagu falaxlanay ma ka dhigataa. soo tijaabiya insha allah waa arki doontaan faa'iidada ay leedahay. mana aha wax aad u dhib badan. saabuun allaale saabuunta adigu ahaysatid oo gurigaaga kuu taalo isticmaashid oo saabuun qubays ah waa isticmaalaysaa. sidoo kale waa liin dhanaan. waa idiin soo sheegay liin dhanaanta iyo faa'iidada ay leedahay jirka u qabato. maa ulwardiguna asaguna sidoo kale jirka waana uu kelin garayaa waana caseeyaa.
faa'iidooyin caafimaadna waa leeyahay. hadda saa u jeedaan saasa isugu qasay caagaanan ku shubanayaa waan u isticmaali doonaa. xataa kaagama baahna inaad talaajad gashatid, kaagama baahna inay kaa xumaanayaan, ma ahan sidoodaasay ku ahaanayaan. dabool yar haddaad rabtid saaro oo maxaan ku radaa ama tishid yar afka ka saar ama caag daboolan ku waxayso. insha allah waan rajeynaya markiina siraan aragtaan. hadda waa tanaa intaa yarta aan sameeyey in badan bay ku haynaysaa, asbuuc ka badan bay ku haynaysaa. marka intaasoo kale waxaa u baahantay intaasoo kale sida kareenkii oo kale inaad saan u isticmaashid markaad falxalanaysid oo aad jirkaagisaan dhex gelisid. gacantaadii waa arkaysaa hal mara waxaa ka dhigaysaa adoo dee saabuun ama isticmaalayo kale ama kareenkaaga ku wadato cadaynteeda ku wadato aan isdhahayn saabuun qaqayro ku ahayn waaye. isla markiina gacantaada uga baaba'aysaa waa kareen oo kale. laakiin maasha allah gacantaada markaad taabatid baa faa'iidada runta ogaanaysaa. faa'iidada runta oo ay leedahay waxaa ogaanaysaa markaa gacantaada taabatid. waxaan isku dayayaa inaad si fiican u arki doontaan markaan ka dhaqan insha allah idin tusaya iyo gacantu say noqonayso. ayar masaajka ayar baa gelinaysaa, ma ahan wax aada u dhiiqa badan iyo maxaan ku rahdaa huruud iyo waqti badan iyo wax kaa qaadanayo maanta dhan u baahayno ku fadhiido ama allahay si dharba iga wasaqaynaysaa ama ilmama soo qaban karo ama waxaasoo dhan maahan. ayar baad gacmahaaga saa u marsanaysaa waad iska biyo raacaynaysaa, weelkaa dhaqanaysaa, hawshaada baad sii wadanaysaa. taas ayar qof farxashay baa tahay. laakiin gacmahaagu sidaad ku ogeyd ma ahaan doonaan. insha allah markaas kasoo dhaqana waa idin tusi doonaa siisay noqonayso. soo tijaabiya asxaabteena qaaliga. faa'iidada aad ku aragtaan filda nala wadaaga. subscribe channelkeena daryeelka jirka haddaad nagu cusub tahay. sidoo kale pagekeena daryeelka jirka soo booqo, like saar, waad nagala socon kartaa isagana. bas kasoo dhaqaya insha allah waa idin tusi doonaa markaan soo dhaqana suu ekaanayso. asxaabteeda qaaliga isku soo noqonay waa kuwana farihii markaan soo dhaqay gacmihii maasha allah lagama sheekeyn karo. haddaad taaban lahaydna adaaba arki lahaa wanaagooda iyo wax kasoo baxayo. asxaabteena qaaliga waxaa idin leeyahay tijaabiya ka wardoona, waxaad u dhib badan maaha. maalinta kuugu horeysa isticmaalaysa waxaa laga yaabaa liig inay gacmahaaga ku noqoto, laakiin si aayaro degan aadan degdegayn u dhaq. maxaan ku rahdaa tishidkaaga maxaan ku rahdaa isku qalajiyo shukumaankaaga markaa dhaqda kadib. kareen kale uma baahanaysid, wax kale uma baahanaysid. maasha allah gacmahaagana gacmaha i kala madmadow iyo meelo madmadow bay leeyihiin iyo waxaasoo dhan waad ka raysan doontaa iyo faraha madmadow ileh. soo dhawaada, aad ba u mahadsantiin asxaabteena qaaliga. idin jecelnahay, idinkaa meesha idinku joognaa. see you next time insha allah. video badan baa soo wadnaa. isla socosho wanaagsan.